Somalia is a land rich in heritage and natural beauty. Its sweeping plains were grazed with the elegance of Somali pastoral communities, caring for their beloved livestock under the vast skies. Fertile lands promise rich crops as rivers meander through the earth, fostering life along their banks. And there, along the coastline, Somalia stood proud, possessing the longest stretch of shoreline on the African continent. Amidst the stunning beauty, however, there was a grim reality that tormented the Somali people. Despite its wealth of natural assets, the country was constantly plagued by difficulties. Famine, hunger, and the relentless grip of poverty loomed huge over the country, casting shadows on it. aroor dheer baan soo aroornaa meel fog oo Mustafa dheera oo naan soo gaari karin oo cadeedina hayso oo gaajana hayso oo dhibaataysanahay yaan ka soo aroornaa aroorkaas 4 kiiloomitir kama yara aduun ka dheeray dabadeed abaar baan haysataa beerihi way naga been wax siira oo haduu roobkaasi doo ku siirsano ma haysano wax dadku qoysasku cunaana ma hayaan marka xaaladdu way iska adagtahay alxamdulillaah waa lagu jiraa caafimaadka sax dhibaatooyin baanu dareenaa intaanu sii soconno waanu sii oominaa waanu sii daalnaa haddaan doono dad waaweyn oo jilbu xanuunayaan oo iska xanuunsanayo oo iska waqti ku jira ayaa soo arooraya marka aad baanu u dareenaa waxyaalo badan oo dhiba ma iman karayaan hablaha waa habla yar yar oo foodlaya oo yar yar kureyda kufsanaysa intay soo socdaan oo dhan ayaanu ka baqaynaa inay kureyduba kufsato oo inaga dilaan marka uma aamino hablaha roonroonna magaalooyinka bay galeen amba ha xamaashaan amba weel ha xalaan xagga magaalooyinka u kacaniyo laakiin hablaha yar aad baan u baqnaa. Somali women, as resilient as they are, endured a merciless overload of warfare and natural disasters. Droughts ravaged the land, leaving behind brittle soil and dissolution, while floods driven by the irregular changes of climate change surged through with primitive impulsiveness. In the heart of these struggles, Somali women and girls suffered the heaviest burden. They served as the caretakers of their family, pillars of the strength in the face of tragedy. Their days were filled with toil and misery, and their nights were filled with anxiety about the uncertain future. dhibaato adag oo noo wada sugayso xoolo halka ka soo aroornay cadceedii daal kulbaan sii fadhiisanayno hadii la had maatidii oo na sugaysa oo naanagi ma garanaysa haddaan doono kolkan xooli soo aroorno dib casarkii u soo aroorno oo casarkii dib ugu soo noqonayno oo habli yar naqnaqnaan aanu aamin ilaanahay ma garanaysa oo dib ugu soo aroorayna hadana oo loodi markaan fulino xaafadii geyno dib dabeeri u soo rarayno hadana aanu casar gaaban geeyno hadana aanu castii ma garanaysa caruurta u kala shubayno raashinkii ku kararayno marka waxa weeyaan wallahi dhibaatada adag baan haysataa oo maanta daalkii iyo tabcaankii iyo dhibaatadii iyo habliin waa rurinaan magaalo galeen wixii yar kalena aanu kala baqanayno waxbarashadoodana way iska dhigtaan haday doonaan way iska dhigataa in tatal ka raasay xafadooda ay sii liidanayda ma garanaysa ay way dhigan kartaa ta kalana in xafadooda iska sii ma garanaysaana oo dhigatay iyagu ku warwarta dirac baa u yar ma koosan kartaa bade iyagu ku warwarsan noloshoodii ankaasana iyadu badaalan tahay oo inay hada shaqashada waxba baahi uga tar karin aroorka dheer dameerka aan dhax wado ari yar bay jooga oo jiila dhalay waan u shushubaa waxa laga yaabaa hadana bari soo noqdo oo afartii jeerkaan dameerka ku waday dhabarkiisa aan u kala shubo baraar yar yar arigana aan bari soo arooriyo abitaankii afkii caruurtii ayna cabinba darmayd iyo jirmayd toon aan la aqoon badii waxa baraar yar oo ayama jirku maydh misoo cabi beerihii cagaftaan gelinay shinidii kama soo biqlinba oo wixii roobaan weyno wabay soo biqlinba marka wadaan is caawin lahayn waxbaan isku dhaamin wixii aan isku dhaano waan siin lahayn tiina roolnada magaalada u shaqo geysay jaariyad bay geysay haday doonto jaariyada kuma nabad gelisay inama yarba haday doonaan ma nabad gelinayaan
oo dhib badan bay arkaysaa iyada lafteeda iyadoo reerka u shaqaysa. Despite the darkness, an aspect of confidence appeared. Women banded together, taking power from their connection and history. Grassroots initiatives took root, providing a glimmer of hope in the midst of despair. In the eyes of the Somali woman, a flame of resilience burned unchecked in the face of adversity. Despite the difficulties they faced, they clung to the hope that a better day was on the way. When young girls migrate from the drought-affected rural areas and into the cities, they face various forms of gender-based violence. Khadra, the vice chairperson of the community committee of Steadhouse IDP, provides instances of violence. kiisaska waxaan la kulmay inaan imika degan xaafadan Steadhouse-ka waxay soo shaqo tagtay Hargeysa markii Hargeysa timidday waxay la kulantay nin baad ku guuray anaa ku guursan anaa hawada maxay kadib markay hawshaas inantii la kulantay inantii daniisa markuu ka dhamastay dawuu farxumeeyo uurba yeelatay kadib hawada buu ka qari waa la waayay inantii iyadoonan cidna haysan arqab garanin ehel haysanin bay ku dul nooshay qof bila aadan oo iyaduba nolol maalmeedkii ilaa raxmaankuuna qiyaaso waqti xaadirkan aan taaganahayna qofna qof ma hayn karayo qofna qof kuma dul noolaan karayo inantii xaamilaa aan cid u naxda iyo cid ehelatoon haysanin ayaa dabadeeto xaafadeedan ku nool marka dhibaatooyinka badan kaamamka waxa ka dhaca hawlaha noocaas ka dhaca waxaana sababaya duruufaha ka taagan abaaraha. And although they braved the storms that raged around them, they held on to the belief that their country will one day rise again.